Hello, welcome to my channel. So our first lesson is alphabets for the beginners. So maanta cashirkeena koowaad waa alphabets, and these alphabets consist of 26 letters. And alphabets kan maxay ka xisaabsan tahay ama ka tirsan tahay ama ku kooban yihiin 26 xarfood. Marka 26 xarfood kan aan kala saarayna xabad u galeynaa. So 21 of them are consonants and 5 are vowels. 21 waa shibanayaal, 5 waa kuwa shaqal ah ama kuwa dhawaaqa leh. Marka waan kala bixinaynaa 25 alphabets ama alfabeetada sida af Soomaaliga loo yaqaano waa kuwana. Waxaan ka bilaabeynaa 21 consonants-ka ah ama xarfaha shibanayaalka ah. Marka kuwa kalena gooniyaan gadaal dambaa ka geli doonaa insha Allah. Isku diyaariya. Marka midda xarafka koowaad waa B, tan labaad waa C, tan saddexaad waa D, tan afaraad waa F, tan shanaad waa G, tan lixaad waa H, tan toddobaad waa J, tan sideedaad waa K, tan sagaalaad waa L, tobanaad waa M, 11aad N waayay N, 13aad maxaa waayay P. Dadka inta badan P iyo B isku qaldaan Soomaalida inteeda badan xarafkan hilmaamina. Tan 12aad waa Q, tan ku xigta waa R, tan ku sii xigta waa S, tan kale waa T, tan ku sii xigta waa V, tan ku sii xigta waa W, midana waa X, tan ku xigta waa Y, Z. 21deena sidaasaan ku dhamaynay. Marka vowel-kan gelina ABCD maxaan filayaa qof kasta si fiican u garanaa, laakiin uma kala baxsano kuwa shiban kuweena lagu dhawaaqa uma kala baxsano. Marka maantaan kala bixinaynaa shibanayaalka waan soo gudubnay. Marka hadda kuwa dhawaaqa ah ama shanta oo marka ku dhawaaqaysid dhawaaq leh ama shaqalka leh kuwaasaan galeynaa. Maxaa yeelay markaa dhehaysid camal dhehaysid dhehaysid markaa dhehaysid O marka u dhehaysid way kala duwan yihiin kuwan kale waa shibanayaalka ee consonant camal. P aska dhihi, B, D waa vowel-kan bilaabana hadda. Marka haddada shanteena vowels aan guda galaynaa. Tan koowaad waa A, tan labaad waa E, tan saddexaad waa I, tan afaraad waa O, tan shanaadna waa U. Hadda waxaan soo galaynaa uppercase ama capital letters oo mararka qaarna loo isticmaalo caps. Marka waa kuwan xarfaha waaweynka waayay. Small letters ama lower case waa kuwan xarfahan oo yaryarka ah waayay. Marka lacala mararka qaar meel ku arki kartaa oo lagu dhahay lower case ama small case u isticmaal. Small letters u isticmaal waa kuwana. Insha Allah intaasi in ka badanna way soo socotaa channelkeeda YouTube-keeda imaada English Somali Translation Hub. Insha Allah badan ay faa'iido doontiin kuna soo dhawaada luqadda Englishka. Haddaad tahay English raadinaysid, Ingiriis hadda baran rabtid, ama haddaad tahay qof Soomaali kasaayo Soomaali ah oo English garanayo Soomaali garanaynin diyaaran ku lahayn inta ku baro. Welcome. maanta marka cashirkeena alphabets-ka insha Allah lesson 2 oo soo socda